كل ساعة مش حبتك كده عايز ايه؟ يعني كلا جرا صاحب بخاري كلا جرا Kismaayo Jubbaland Soomaaliya halkan waxay ahayd inay noqoto meel amni badan meel ay carruurtu ku barbaari karaan si nabad ah oo ayna saamaynin dagaalka sokeeye ee Soomaaliya balse wixii halkan ka dhacay bishii Luulyo ayaa burburiyay dhalanteedkaas magacaygu waa Jamaal Maxamed Cismaan waxaan ahay suxufi Soomaaliyeed Kismaayana yimid maalmo ka hor weerarkan aniga oo ku rajo weynaa inaan ka warramo siday magaaladan ku noqotay iftiinka nabadgelyada dalkayga balse Soomaaliya wax sidaas u sahlan ma aha So amazing when you come to Somalia, you just enjoy being an everyday person. I love it here. I don't know how many politicians can do this, but I can. markii aan Kismaayo u soo duulay bishii Luulyo waxaan garab fadhiyay qof tusaale u ah rajadaas aan ka qabay gobolkan ku yaala koonfurta Soomaaliya. And me, Hodan Naleya, the founder of Integration TV and a proud Somali sharing Somali stories all over the world. Hodan Naleya waxay ahayd sidaydoo kale suxufiyad Soomaaliyeed iyadoo ku barbaartay Canada balse go'aansatay inay ku laabato dhulkii hooyo si ay u iftiimiso horumarka wanaagsan ee halkaa ka jira. Hodan iyo kuwa badan oo kaleba waxaa dhiirigeliyay jawiga nabadeed ee Kismaayo magaaladan kama dhicin weerar weyn oo ay al-shabaab geysatay 7 sano ee la soo dhaafay xilli doorasho halkan ninka hogaamiye Axmed Madoobe waa madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ka soo laabtay safar dibadeed halkan waa laga jecel yahay maadaama uu dhaliyay bulsho xasiloon iyadoo uu jiro dagaalka al-shabaab kooxda islaamiyiinta ah ee ugu awood badan Afrika xulufana la ah al-Qaacida badan ayaan waraystay al-shabaab iyadoo la aasaasay 2006 al-shabaab waxay maamulaan qaybo badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo ku jirta qayb ka mid ah Jubbaland waxay doonayaan inay afgambiyaan dawladda Soomaaliya dhisaanna mid ku salaysan aragtidooda diinta Islaamka tani waa isbeddel weyn oo uu gaadhay shakhsi isaga ku dhiisa markii horeba ka tirsanaan jiray dagaalyahanadaas islaamiyiinta ah xaslada qofkii nabad iyo amni u keena way garab istaagayaan saasaan isleeyahay qofku inuu cadaalad ka helo nabad inuu helo amni inuu helo horumar inuu jiro dawladnimo inay daro sababtoo sharci iyo kala dambayn tani waa isbeddel weyn oo uu gaadhay shakhsi isaga ku dhiisa markii horeba ka tirsanaan jiray dagaalyahanadaas islaamiyiinta ah sanadkii 2009 ayuu ka soo horjeesaday saaxiibadiisa shabaabka waxaan isku diiday waxay ahayd siday u socdaan iyo diinta sheeganayaan markaan war khalad kala jira waxaan islaamku ma qabo dib ha looga soo noqdo waxaan aan xaqiijinaa waxa uu yahay oo ay diideen sabab loo saaxiibi karaa ma jiro taasaakeed waa taan ilaa hadda rabo inaan ula dagaalamo dagaalkoodii ugu sii jira markaa mid iga dhamaanaysa maaha markii aan ciidanka Jubbaland u raacay mid ka mid ah hawlgalladooda dibadda Kismaayo way ii muuqatay siduu dagaalkan u haleelay rayidka in dareensannahay inayna noola hadli karin in badan cabsi aad iyaga ka qabtaan awgeed ciidamaduna waxay ku tala jiraan mar walba inay idiin adeegaan idinma aha cadow idinka waxay idin yihiin wehel ما أود أنا وربعين بعيد ما أود يا كبقي سامركا نفتينا وبغيا عدا كبقي سلك مشيك waa arrin adag in la sugo amniga goobaha miyiga sida halkan oo 50 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo balse inaysan weerarro ka dhicin magaalada ayaa ka dhigan in qorshaha amniga ee Madoobe uu yahay mid shaqaynaya halkan waa xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Kismaayo kaasoo lagu hayo kuwa ku eedaysan inay yihiin dagaalyahano al-shabaab qaarkood maxkamad lama soo taagin weli Ilyas wuxuu ku eedaysan yahay inuu dilay nin daaci al-shabaab ahaan jiray markii dambena kooxdaas ku hurmay ninku dhalinyaro markuu yahay sidiisaba kooxaha banooniga waa la aragtaa ninba koox buu jecel yahay ninba koox buu aad u xiiseeya u daneeya hadda marka waddanka sidiisaba laba dagaal baa ka jirta ima dawladda ima shabaab wax kale u dhexeeya ma jiro balse dadka qaar
ayaa beddela dhinaca ay la jiraan. Waxaan waa unug aad u tababaran oo ka kooban kuwa horay u ahaa dagaalyahanno Al-Shabaab. Waxaan ula kulmay si aan u ogaado sababta ay uga hor yimaadeen saaxiibadoodii hore. taliyahoodu waa Cabdiqaadir. annaga kaskeena isku geeyne annagaana codsana inaan meeshan fadhano oo wadankeena adugu ka qabano annama qasban waalid iyo anaga ma kulmi jirin xaasna weligii hatta ma shukaansan jirin aan ka xishoon jiray laakiin inta markaa imaaday waa wareereebo maanta Cabdiqaadir waa fasax waxaana uu u jihaystay dhanka gurigiisa si uu u soo arko qoyskiisa isagoo wada nacnac iyo kubad cusub oo uu carruurta u soo gaday. xaaska Cabdiqaadir way ku faraxsan tahay inuu ninkeedu u soo wareegay dhanka dawladda. isbedel weyn aan ku arkay shabaab markuu la shaqeyn jiray hadda dawladda markuu u shaqeynayo markuu u shaqeynayo ma sha Allah tahay shabaabta dhib aan ku qabnay 7 bilood 8 bilood maqnaana duurku ku jira dagaal uu aaday kun shilin lagu musiinay biil ilmaha malahan rafaad. waa maalin jimco ah madaxweynuhuna wuxuu ka qayb galayaa salaada. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. annaga oo duubayna qoysas ku damaashaadaya xeebta ayaan maqalnay jug weyn kadibna carruurta waxa ay bilaabeen inay kala cararaan iyagoo muujinaya cabsi kuna dhawaaqaya qarax. isla markaas waxaa meesha ka baxay 7 sano oo ay Kismaayo ku naaloonaysay amni iyo xasilooni. muuqaalkani waa qaraxii oo ay CCTV-du qabatay. wuxuu ahaa weerarkan mid Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina halkaas oo ay dad ku shaahaynayeen. qof isqarxinaya ayaa gaari qarax ka buuxo ku dhuftay albaabka hoteelka. qadar yar kadib markii sawirradan la qabtay 3 nin oo hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa gudaha u galay hoteelka. dibna waxaa bilowday gumaadka. sawirqaadahanaga ayaa u orday jihadii xabadda iyo qaraxa miinada aan ka maqalnay isaga oo ay weheliyaan darawalka iyo waardiyihii nala socday. mid kala dhacay hayna عليه maxamed intaan adoo aniga ku sugnaa wada ku socdaa meesha xabadda ka dhacaysay gaari kala jira saaxiib Bukhari kala jira waraga fralok dagaalkii dhex maray raggii Al-Shabaab ka tirsanaa iyo ciidamada dawladda ayaa qaatay 12 saacadood. waxaa ku dhintay 26 qof 56 kalena oo ay ku dhaawacmeen. 3 ka mid ah kuwii weerarka geystay ayaa iyaguna ku dhintay midna nolosha ayaa lagu qabtay. mid ka mid ah dadkii ku dhintay waxay ahayd gabadhii aan diyaaradda kula kulmay Hodan Naaleeye oo xaamilo ahayd xilligaas waxayna ka tagtay 2 wiil. ummadda Soomaaliyeedna kulligood aan leeyahay sabiriiban Allah idinka siiyo aanan u ducayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. weerarka ayaa wax weyn u dhimay wax kasta oo uu madaxweyne Madoobe ka shaqeeyay. waxaa hoos u dhacay awooddiisii maamul. waa argagaxday dadkii waa kala yaacay waxaan u baranay maaha marka cid walba aqli leh way ka dareemi karaan ka dhaadhacsan tahay wax bulshada khalkhal lagu galinayo ama dib u dhac saameyn Jubbaland ay ku yeelanayso inay qof walba uu dareemi karaa laakiin alxamdulillah halkeeda ka soconaysa insha Allah. waxaan Kismaayo u aaday inaan ifiyo nabadda iyo horumarka ka jira Soomaaliya balse waxaan ka soo noqday aniga oo gaaray gunaanad kale. Hodan Naaleeye waxay rajaynaysaa inay aragto Soomaaliya oo dhan oo ku midowda nabad. waxay ila tahay riyadaas inay la dhimato iyada. muxuu noqon mustaqbalka dalkayga uu dhiig